geesi uma harin laakiin waa sidii nila rabay jiifka inaa ka kacdin waa diidaan kulligii idinkaa gacantiin isku maleegaysiin idinkaa isdilaysiin tiradaa ka badateen halkii niisoo baxa haddii godka la gelinayo warqoojo jiraa digaagii ahaa wixii la dilay markasta midkii geesigiina haddii la dilaa maxaa tihidiin habargidin maxaa tihidiin oo furunta nila geenaayo geesigiina gadaal waa u dhimi weyseen tan waxaa waay dhimashaa ka xigtaan inay isdishiinaa ka xigtiin wallaahi ilaa imaanta oyna geesigayga waa la bixiyey tolbeelaa habargidina tolbeelaa habargidin yaa tolbeelay wallaahi maanta oyinteeda mana cadda mana madooba laakiin habargidina idinkaa isbaabiseen ama hanila shirqaalo ama hanila dilo idinkaa isku talagasheen maanta gees haddana waxa iiga xun maanta wiilkaas madii ahay hooyis keligeeda wiilka qabay kawaran marka geesigiina haddii saa loo baabiinaayo aad jijiftiin afar iyo laba maalin aad kusoo koobtiin ina oysina baroortiqliin yani igu talagala habargide cawaanaa tiidin aniga maanta magacin inaan ii dhiigaa diyaar u ahay geesigayga haddii la dilay walaalkay waa ku salaamaya dhiigayga boqolkuu marayaaye hayaabay samar iimaan allah naga siiyo qof kasta wuu dhimanayaa laakiin dayacitaanka iyo lugooyada iyo maaragtay iyo waa tabtii yiriisow lagu dilay goomaalaa lagu dilay janaagalaala lagu dilay waxaa lagu dilay baalkii la yiriisow gabadhii uu dhalay baalkii la yiraahdo elman aa lagu dilay wax naloo reebay ma jirtaan kuur wax naloo reebay finna cindi assalaamu calaykum wa calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawaad abo wiilka walaalka dhintaa u tacsiyeynaysiina u maleynaaya hadda dhawaa idiin soo galaya horta abo geeridu waa xaq aniga hadda wiilkaas walaalkay farxaan qaroola meeshuu ku dhinta meel ka fiican oo nin raga ku dhinta ma jirto maanta caadi waa wadanka haysta ninka raggaana markuu dagaal aado inuu asaga wax dilo ama asaga inuu la dilo ee noqonaysaa walaalkeena saak wuxuu u baxay inuu soo dagaaltamo cadowga gacantiisa ula tago waqtigii xaq ahaana waa ku imaaday qof walbana way dhimanaysaa kulli nafsi daaqo mood aniga meesha maanta wiil geesi uu ku dhima lahay uu ku dhintay nafteyda xataa ani haddaa meeshaas aan joogi lahay waa ku faraxsanaa lahaa dee maanta go'do because dad la sii haysto dad la ceshto dad meel loo fadhiisto ma joogno waxaan joognaa xasuuq ninkii aa maanta dhimana wuu dhimana al-shabaab qof walbo soomaali ah waxay u qoondaysa inay disho qof ay reebaysa ma lahan madax horaa naga soo baabaaday dad horaa naga soo baabaay ooyinta iyo qaylada iyo balowga dadku ha iska daayaan ha u duceeyaan geesi kasta geesi ma dhammaan habargidir geesi kama dhammaanin wiil soomaaliyeed u ahay geesiyaashu waa joog geesigu 4 iyo 1 maahan ninka maanta furunta shabaab ku dhinto waa nin geesi ah waa nin ay taariikhda xusi doonto shabaabna nin kastay dili doontaa nin ay gooni u deynaysa ma lahan adduunka nin asoo shaah cabaayo ama hotel dhex fadhi intuu dhimo lahay wiil walbo dagaalkaas ku dhimo walaalkeena wuu shahiiday maxaa la dhahaa ilaa saxaabtii aa la shahiidayay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam maalintii uu dagaalka uu galay waxaa dhintay maxaa la dhahaa xamso uu dadku ugu jeclaayaa dhintay nin walbo geesiyaa dhimanayo ninka raggaana markuu dagaal ka aado khasbiin waxaa ahay ama inuu dhinto ama inuu wax soo dilo dhimashada waa xaq walaalkeena wuu u baxay inuu wadankiisa u dhinto wuuna shahiiday ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu jannada geeyo ooyinta iyo balowga hala daayo habargeeri geesi kama dhawaan geesiyaashu waa joogaan dadka Soomaalida waa dagaaltamayaan geesinimadu waa joogtaa dagaalka hala taageero faraaruqa iyo waxa laga sheekeena iyo hebela ka dambeeyay hala joojiyo meeshuu ku dhinto waa loo jeedaa waa caloosha shabaab waa dagaalkii shabaabna inay waxba mu aasto iyo inay disho waxa ka go'an waay waxa umada ayada leena waa ayaga yaa madaxda iyo ciidamada yaa tafaraaruq la gelinin balaayada la wadana hala joojiyo dagaal lagu jiraa horta walaalay dhageyso dawladda hadda Soomaaliya waxa ka hawiye madaxweyne waxa ka anaba sugida hawiye gaari aan xabada karin walaalkay maanta in loo quuri waayo furuntana la geeyay xilka uu haayana xil gobolka Banaadir oo dhan u haayay in gaari Cabdibilaa daaqada laga saaray miyaa maanta daboolaysa walaalay horta farxaan wax loo diiday in dadka la siinayo in farxaan wax loo diiday dadka la siinayo u maleemaayo
dowladuna u dagaal baxay dagaalkana asaga u baxay inuu soo shiido haduusan dagaalki rabin walaalkeen wuxuu fadhiisan lahaa maxaa la dhahay sida madaxda oo hadda Soomaaliya nimanka madaxda isku sheegay ma geesi abo horta dad badan la weynaa dad badan naga dhimanay kaligiis ma ahan dagaalka shabaab lagu jiro madax badan la weynaa dad badan dhimanay wax easy ma ahan waa dagaal lagu baa doono geesi aan ku dhimo doono fulay oo dhan waa iska hari doona aniga walaalkay maanta meesha ku dhintay waqtigiisa galay cidna ma celi karto geesinimo loo baahay waxa la yiri maxaa la geesinimo waa alaka idageyso dadka hadalka waan ka soo baxaya aniga waxaan rabaa waa dhameena abay waan kaaga baxaya waxaan rabaa caloosh in la wada xirto beerkana wada xanuunayo waa ognahay qalbiga isku keena dhacsan naxdinta heeso u duceeyna bas laakiin hadaa cala cashin xali dheere iyo shabaaba garab siinaysiin taqaana waxa tusaysiin hadalka u jeeda nimanka ka hadlaysa aniga barnaamijkayga ma ahan dawladda Soomaaliya madaxweynaha baarlamaanka idageyso maanta wasaaraha ninka la yiraahdo nabad sugida maanta waxa la dhaliilo ma ahan walaalkeen ayaga dilay abo maanta waxa la dhaliilo shahiida lagu jira abo idageyso maxay dileen shahiida lagu jira abo maanta wax la dhaliilo ma ahan nimankan eeyaha aan farta ku wada fiiqno wixii naga dhintana u duceeyay waan ka baxaya dadkan jaanaysiise waxa dadaboolaysa aniga maanta halkan fariin waxa u marinaa wiilasha habar gudur oo dhan furunta iskaga soo baxaan al-shabaab Soomaali waa loo wada siman yahay ha soo galaan dagaalka Soomaali oo dhan abgaal ha soo galaan maxaa habar gudur looga dhigayaa ninka ugu horeeyo aqli ma qabaan miya inta gaaruxuna Cabdibilaa oo ever inta loo dhiibo iyo qori aan xabad ka dhacaynin marka ayaga furunta u hormarayaan abgaalka xagay ka baxeen daaroodka dabaqyada ku jira may soo baxaan Soomaali waa loo sameeyay nin kasta oo habar gudur gadaal ha soo maro iyo saxabada asaga ku hor dhicin wax geesinimo liira way dhamaatay hal iska wada celiyo nimanka maana wiya xawaaliya habar gudur السلام عليكم قرعلو soo dhawaad السلام عليكم وعليكم توربين wadada ka horeey mud gal abay ku soco saar ku soco walaashay السلام عليكم يا إنسان حوالي أوي وياهي قدال يا لوك hadalka hal iskala sii dada hoos jooga sahra ku soconaysa waa ku xigtaa sahra ku soco soo koob abay dad badan hoos fadhiya hadalku waa ku taragal waaye dilka farxaan ku taragal waaye gaari water proof loo gadi waaye asaga furunta la iskaga hormariyay nimanka abgaal ha soo baxaan maxay u seexanayaan dibku u wada yaala al-shabaab dadka dhan way wada dhigtay hal qof may dhibin daarooda dhigtay oo hawiye dhigtay oo Soomaalida dhigtay maan in habar gudur meel walba lagu barooweey ayagana daqamo ma ahan mise aadin dagaal dambe anigu wiilasha walaalahay maanta inta soo siinaya farxaana jirkaygan ka dareema habar walba oo wiil dhashan way dareemay xanuunka amaanta dareemayo waana ka baxay walaasheen ku soco gabadha kale ku soco baa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركور وعيد السلام قرعيل أبوي الله يا رحمة راحمين هرت مركورة والالكين إلهي سبحانه وتعالى قبر جيسا واسعية كتاب كيسا نمدك الله كسيو لما انتينو نقر انتي ويل صوماليات وايو dhibka mataqaanaa idinka aad dareemaysaan waa idinla dareemaynaa geerida iyo xanuunka farxaan ma ahan qof qabiil farxaan wuxuu ahaa qof qaran ah dowladda Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed nimay fiirsanayso ahaa nin intaasoo hooyo ah gurigeeda joogto ee ku hurdi jirto ah alla ka soke geesiyo ahaa dayacana wuxuu ka yimid dhanka dowladda waa aniga saan dhaliisha saaraayo waayo haddayse dowladda mataqaanaa aqoon-yahanka ama mataqaanaa ninka geesiga ama taliyayaasha ama amanduulayaasha aysa dowladda ka fikirin yaa kaloo ka fikiraya xaqiiqda markii laga hadlo ilmaada reer walaalo gurceel adna waxaan kaa codsanayaa ummadda Soomaaliyeed meesha joogta walaalaheen waxaan ka codsanayaa dhammaantood in bahasha qabiilka laga daayo mataqaanaa sida saxda walaalkeen ku wada lagu wado aan dadka la kala qaadqaadin Soomaali weyn buu wiilkaas ka dhintay aan wada duceyno wallaahi bilaahi tallaahi farxaan wiil Soomaaliyeed waa maanta inaan mataqaanaa aan isku qabiil ahayn isaan mataqaanaa iskuna dhaweyn laakiin wiil Soomaaliyeed waayo waan ka danqaday saan walaalkay uga danqanayo kala uga danqanaya waa geesi Soomaaliyeed buu ahaa
geesi ummadda soomaaliyeed ka geeriyooday buu ahaa maanta inta ama dhiban mataqaanaa ooyeysa ama inta mataqaanaa dhibka la dareemayso soomaali weyn oo dhan waa jareer iyo jileec buu ka wada dhintay ninkaas garab soomaaliyadoo baxay waa geesi soomaaliyadoo baxay waa dayaca maanta farxaan ku baxayna dowladda xigtay ka timid ajirsiisiina way timid qofna jaacadiisa ma dhaafayso hana loo duceeyo faamilkana dhammaanteen inuu wada duceynayn ilaahay qalbigooda u qaboojiyo badal kheyr qabana farxaan ka dambeyn ilaahay ina siiyo insha allah bidna ilaahi karim waan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa maasantaa qofka kale ugaasoo ku soco adigana ugaasoo sida loo kala horeeyaan ugaasoo ku soco abaay